Dagaal culus oo raab ah una dhexeeya raabarka caanka ah ee lagu magacaabo Sharma Boy iyo raabarka codkiisa uu ka beddelan yahay raabariinta kale ee Soomaalida ah ee lagu magacaabo Big Moha ayaa waxa uu qabsaday saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada khaasatan aaladda lagu magacaabo TikTok. xasuuso afgooya xasuuso adoo kirishbooda u yasiyaad raabta mise waa heesta iyadoo haddaba muuqaallo iyo heese free style ah hawada la isku marsiinayo. Maxaad kala socotaa sababta ka dambaysa in ay qoorta isla galaan xiddigahan ku raaba afka Soomaaliga ah ee lagu kala magacaabo Big Moha iyo Sharma Boy ayaan warbixinteennan ku eegi doonaa saaxiibayaal. Haddaba daawade muuqaalka intaan u gudagelin fadlan muuqaalka like saar sida saaxiibo badan uu u gaaro ku mahadsanid. Dagaal culus oo raab ah una dhexeeya raabarka caanka ah ee lagu magacaabo Sharma Boy iyo raabarka codkiisu uu ka beddelan yahay raabariinta kale ee Soomaalida ah ee lagu magacaabo Big Moha ayaa waxa uu qabsaday saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada khaasatan aaladda lagu magacaabo TikTok, iyadoo haddaba muuqaallo iyo heese free style ah hawada la isku marsiinayo. Aanu ku horeyno saaxiibayaal da'yarka codka dahabiga leh ee lagu magacaabo Big Moha oo karbaas culus oo kufsi ah kala dul dhacay fanaanka lagu magacaabo Sharma Boy ayaa yidhi xasuuso afgooya xasuuso adoo kirishbooy ah xasuuso oo ay dadku ku yasayaan horta ma raabtaa mise waa heesta. xasuuso afgooya xasuuso adoo kirishbooda u yasiyaad geesta kale inkastoo dagaalku uu sii xoogaysanayo Sharma Boy ayaa bartiisa TikTok soo geliyay muuqaalkan iyo weliba free style uu kula jiro raabarka lagu magacaabo Sheru karbaaskaasi oo ku socda fanaanka lagu magacaabo Big Moha. kusoo degoo qolka dhimashada iiga wareeyo cabashada sawirkeejiidsaro shaashada miina culus dhabarka saacsada qolka ka soo bax kabada ka soo bax. Dhammaan dhalinyarta xiisaysa heesaha raabariintan ayaa yaaban oo afkii ayaa juuqda gabay gantaallo ayaana hawada heehaabaya walow sida aan xogta ku hayo saacadaha soo aadan ay soo bixi doonaan heese raab ah oo hor leh islamarkaana ah karbaas ay soo qaadi doonaan fanaaniinta hadda ishaya iyo kuwo kale oo la kala safan labaduba. Dhalinyarta qaarkood ayaa aaminsan in labada dhan ay ku wada raadsanayaan arrinkan in heesahooda la daawado ama ay helaan daawasho aad u fara badan, halka kuwa qaarkoodna ayba u arkaan dagaalkan inuu yahay mid xiise gooniya xambaarsan. Muuqaalka like saar oo soo follow garee barteennan Ducaysana Media sida aad ula socoto xogaha kaa qarsoon ee ku aadan arrimaha fanka iyo dagaalkan xiisaha leh. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.